maamulka dowladda hoose degmada Garadeg ay weeriyaan hay'adda dhismaha wadada Ceerigaabo iyo gobolka Togdheer isku xidhisay qaybteeda degmada Garadeg ee Cadaad Kambile ayaa maanta ka howlgalay sida wax uga qaban lahaayeen biyo la'aanta baahsan ee ka jirta deegaanka degmada Garadeg iyo nawaaxigeeda hoostaga iyagoo qodaar ku sameeyay jidaan weyn oo ku taala Togga Cadaad oo durdura iyadoo ay u weynaysiin lahayn isla markaana uga soo saar lahayn biyo ku filan xoolaha ka cabaya ceelka iyadoo biyo la'aanta baahsan ee ka jirta deegaanka hoostaga degmada Garadeg iyo nawaaxigeeda ay sababtay inay xooluhu iskugu soo ururaan ceelka Cadaad isla markaana ay xoolaha ugu badan haatan ka cabaan ceelka Cadaad maayirka degmada Garadeg mudan Faarax Aadan Ciise maayir ku-xigeenka degmada Garadeg Yuusuf Cabdi Axmed iyo xildhibaanka golaha deegaanka u qaabilsan arrimaha bulshada Cilmi Axmed Jaamac iyo xildhibaan Cali Jaamac Abdooyo munaasabada goobjoog ka haya ugu horeyn waxa ka hadlay maayirka degmada Garadeg hadaladiisna waxa kamid ahaa sida tan waxa weeye waa ceelkii Cadaadeed oo markii ay biyihii yaraadeen oo hoos u dhaceen aanu qodayno hadeer anagoo adeegsanayna cagafyadii kambanigii sameynayay wadada oo runtii aanu Cadaad construction company oo aanu aad iyo aad ugu mahadnaqayno ka qayb qaadashada iyo taageerada uu naga siiyay ama gacanta uu naga siiyay qoditaanka biyaha Cadaadeed biyahan oo ah ama kashan oo ah meel aad dad xoolo iyo dad fara badaniba ay ka cabaan xilliga jilaalka iminkana heerkoodii ay hoos uga dhacday kadibna ay noqotay markaa in la qodo waxa weeye imika waanu qodnay xooluhu waxay ka heli doonaan insha Allah biyo ku filan inay ka helaan baanu rajaynaynaa shirkadana waa mahadnaqaynaa aad iyo aad baa mas'alaad calaykum waraxmatullaah madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo because ma heleen tansiilaadkan ba hadii aan wadadan sameynteedu aanay ka helin tansiilaad maba heleen bada gaadiid hadeer aanu yacni naafacsanno marka waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa ilaaha raxmaanka ah waxaan kaloo mahadnaqaynaa dowladda Soomaaliland iyo madaxweynaheeda waxaanu kaloo mahadnaqaynaa shirkadan qaabilsan wadada gudoomiyaha arrimaha bulshada waxaan u mahadnaqayaa kambanigan dhisaya wadada oo na siiyay oo nagu caawiyay cagafyadaas iyadoo ay biyo yaraadeen waxaana u sheegayaa dowladda Soomaaliland iyo cid kasta oo danaynaysaba in ay biyihii yaraadeen xoolina 70% ay aad u liitaan ceelka Cadaadeed oo biyihii oo yaraaday awgood loo adeegsanayo cagafyo waxaan marka koob Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo waxaan u mahad celinaynaa shirkadda Cadaad Construction Company noo fududeysay inaanu banayno shidaamihii waaweynaa oo go'ay ama isu bedelay wax yar oo biir ah inaanu gelino cagafti dhex gelino oo si ay u banaanaato ay xooluhu cabaan Omar Sayre TV qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland Garadeg